الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه وسلم وأوصيكم ونفسي بالتقوى الله فإنها خير ما يتصف به العبد وخير ما يتزود إلى يوم المعاد ولا الليال وحين كهد الدونا إن شاء الله dhibaatooyinka maanta jira ee caalamku aad uga qayliyay waxyaabaha aynu kaga hortagayno fi manduurin diini wa islaami inagoo ka eegayna dhinaca diinta iyo waxayna fartay wax kasto dhacaba islaamku waxba ku xaliyay waana waxa u wanaagsan waxaynu kaga hortagaynaa ugu horeeya addu'a toddobadan qodob baynu tirin doonaa waxa ugu horeeya addu'a inaynu ilaahay barino subhanahu wa ta'ala قالوا أودهم بيسبدان لكن إلهي ما بريان بريا قالنا لما أقبله رسولك صلى الله عليه وسلم استقوا الدعاء ينقوا أننا يمرك وحدعان وحولي حديث أحمد ورني حسن كاها لا يرد القدر إلا الدعاء أو لا يرد القدر إلا بالدعاء قدر كالدعاء بلغوه رجوك سداه أنا الدعاء نوى قدرنت هاي وحي صور عينه وقدرني هاي لبدا سؤال هاي سكر ريبيا وحقدر كإلهي كبحا مجرو حديث كرا حاكم وريني من حديث عائشة حسنة رسولك وحول صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل دعاء بلايا صوت دكتين وحبي كترتا بلايا صوص عطنا وحبي كترتا وإن الدعاء لا ينزل وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة بلا إذا صوص عطاء أي الدعاء إيا ربي بارك كهرتقاه إلى قيامة انت اللي قال يانا وإسلال لبن لك ديسته كهدي الدعاء حوق بدنته ويكحوق بدنته انت بلا يده وحينو كهرتقاه ناس دعوين كاس ونبي نوتشي دي صلى الله عليه وسلم دعوين كنبي نبري بأغفر لبدن taasoo ilaahay uu baryayo wixii khayraha doomuha ay haystaan inuu ilaahay u daayo wixii balaayana ka duwo Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matik ducooyinkii nabiga calayhi salaatu wassalaam ilaahay waxaanu ka magan galaynaa inaad nicmada naga qaado caafimaadkana aad naga qaado balaayadana aad nagu rido intaaba waa ka magan galaynaa min zawali ni'matika wa tahawuli aafiyatika wa fujaati niqmatik إلهو نعمة النودة وعافماتك النودة وبلايا كريس كان نقد القاد وحكود عيساني رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام والذا إيا برص إيا عذر كالجذام كالله إيا عذر هذا حنبا إلهو كان مقنقلينا بكدعوين كوارد كأن رسولك كسوء ريبا سرت حنبارس وحال بعض إنك كهرتقينا الصدقة inaynu deeqda bixino dadkana waqtiyadan la kala xidhay busaarada ku badan iyo baahidee qof waliba wixii uu dhiibi karo u bixiyo sidaas uu ina baray nabigu calayhi salaatu wassalaam xadiis bukhari iyo muslim ku sugan ayaa wuxuu nabigu ku cadeeyay maalintii qorraxdu ay madoobaatay oo dee waa musiibooyinkii dhacay caalamka ku soo kordhay waxa uu yiri fa idha ra'aytum dhalika fad'u allaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu marka arrimahan oo kala aragtaan waaweyn caalamka ku soo biiray balaayinka ah ilaahay bariya allahu akbar tabadiya salaada tukada sadaqadana bixiya Anas ibn Malik oo xakayntii nabiga sallallahu alayhi wasallam rasuulku gacantiisa ku tababaray waxa uu baakiru bi sadaqati fa inna al-balaa la yatakhatta sadaqa bayhaqi ba warinaya waa athar sugan weey لك الله صدقة ولا دقدق بلايد وكما صوت الله بسطه صدقة وكما سود البودة ودقح إلهي وكتشوتشيو ولماذا وحي إلهي حتى قفك قال كألفتيس دينو إلهي كقد دفاعي ولا قفهمي كراع حديثك وحو النبي حسي عليه الصلاة والسلام لبما لقينا مالي والبس سود قيانو بذوات دعيال دعوا لتاغين اللهم أعدي اللهم أعدي منفقا خلفا إلهو كوحبحية بدل سيب الله ككلنا هبار بولا تاغين وحو الله اللهم أعدي ممسكا تلف إلهو قفك وحي سيسكها تلف سي
talafku waa dhimasho xoolaha ka dhiman kara naftiisa dhiman karta ehelka ka dhimanaya waa habaar 500 ha ahaato 1000 ha ahaado koob shaahana ha ahaadee habaarka malaga inaynu wuxuun kaga fakanaa fiican waxa uu kaluu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam cudurka laftiisu markuu yimaado waxyaabo ilaahay ku qaaday inay ka mid tahay sadaqadu daawu mardaakum bisadaqa atharka xasanka ama xadiidka xasanka saasuu nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam dadkiina buka ku daweeya sadaqada marka ka hortag iyo ka dabatag labadaba inay sadaqadii noqon karto ku cadeeyay xadiidka rasuulku waxyaabo aynu kaga hortagayna waxa kamid ah shukru nicma والصبر على البلاء قفك أما ودبي أما داف بو هيستا مركو برواقي خير هيست إنه إلهي أمهدنقو سبحانه وتعالى مدركي با إلهي نوشوي أبارتي وإنغا إلاليي مركا وإن إنه إلهي أمهدنقنا إن بدن ربي سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم بإلهي بلن قادر وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم إلهي وحب بلن قادر وقيسي haddii ay mahadnaqdaan waan kordhinaya caafimaadkan kordhinaya xoolahan kordhinaya roobkan kordhinaya wala in kafartum min adaabi la shadid haddii nicmada ka gaalowdaan oo ku mahadnaqi weydaan cadaabkaygu wuu daray cadaabka cudurrada adaga caamkaaba ka mid ah waxa aynu kaga hortagaynaa ama ku waajahaynaa inaynu ka faa'iideysano waqtiga faraha badan aynu haysano الفراغ dadkii waa la wada xareeyay Soomaa maxay dadku yeelayaan miyay iska ciyaarayaan miyay majaajileynayaan dad badan baa waxay ka dhigteen ba cudurkan iyo waxan dhacay waxay ka xaraabaadsadaan ama ka riwaadsadaan qaar sida digaaga dawciya aad arkaysa qaar guryaha dhexdooda ku maadeynaya aad arkaysa markaad eegtan barahan bulshada iyo meelaha wax laga eego waqti aad u fara badan buu qofkii helay oo laga yaabo inaanay isu helin isaga iyo ehelkiisa iyo ubadkiisa waqtiga waa in looga faa'iideeyaa maxaa adduuniya aakhira badani noo ah sida loo cibaadaysanayo sida cilmiga loo kororsanayo sida aqoonta kor loogu qaadayo sida ubadka loo rabaynayo waqtiga dadku shaqooyinkii laga fasaxay waxbarashadii laga fasaxay waa nicmo qaali ah oo laga yaabo markaad mashquulsanayd inaanad haysanin talooyinku nabigu nasiinayna wuxuu ahaa wa faraaqaka qabla shughlik وصحتك قبل سقمك انت انا عذر كوغو دحين عافيمادك كفايديسو انت انا مشغول فراغ iyo chance ka faa'iideyso marka taasina nicmooyinka kamid ah waqtiga in lagu buuxiyo wax qiimo badan oo ciyaarta laga daayo iyo riwaayada iyo bilaa macnaha iyo haasaawaha iyo dambiga waxaynu kaga faa'iideysanaynaa inaynu soonno bishan Shacbaan oo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uu soomi jiray soonkeeduna waxa uu ka mid yahay soomamka ugu fadli badan sunnayaasha axaadiidta saxiixaynka waxa ay tilmaamayaan oo Caaisha leedahay kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliilan in yar mooyaane bisha shacbaan nabi maxamed uu wada soomi jiray wamaa ra'aytu akthara siyaaman minhu fi shacbaan bishu ugu soom badnaa nabi maxamed bilaha sanadkoo dhan marka la isku daro shacbaan bay ahayd ramadaan marka laga reebo أسامة بن زيد أصحابي لورنا يبا ويدية النبي قال وحول بيشن صوم كأد بعض بديسا شعبانه محاكو سوكر داي وحول النبي وكسب بي صلى الله عليه وسلم بيشن وابل أيدتكو قفلتك قسو جيهين أما أنا أدو الدرين سنين صوم كيدو فضل قبلي وابلو دحيسا بليه حرمة الهامد كمدا ورجبه يا رمضان marka rajabna waa loo dadaalaa ramadaanna waa loo dadaalaa bishan bay dadku marka qaflad ka galaano markaasaan doonayaa qafladda inaan dadka ka baraarujiyo marka aad buu badin jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam bishan soomkeeda waxa kaloo tilmaamay camalka adoomahana in ilaahay la gaarsiiyo loo kor qaado waxa ku jirta bay culimadu leeyihiin xigmado dhowra oo nabigu soomeeyay sallallahu alayhi wasallam bishan shacbaan si aynu uga faa'iideysano xigmadaha waxa kamid ahaa xaasaska nabiga calayhi salaatu wasalaam intii soomku uu ka tagay soomku uu ka dib dhacay qalihi bishan shacbaan bay soo qalayn jireen sida xadiidka saxiixa ah Caaisha ku tilmaantay soomka wixii iga tagay ramadaan hore ay dhaafay waqtigaanay daahirka ahayn iyo waxaan soo qalayn jiray shacbaan marka si uu nabigu ula dadaalo xaasaskiisa isaguna sunnu soomaya iyaguna qalihi bay soomayaan
soomkaasi xikmadaha ku jira waxaa ka mid ahaa sidaa xadiidka hore usaamaba uu soo sheegay si uu qafladda uga baraarujiyo nebigu iyo cibaadada ay warla-aanta kaga sugnaanayaan. xikmadaha waxaa ka mid a sida xadiidkaasi uu caddaynayo waa waqti camalka iyo warbixinta malaa'igtu ilaahay ay gaadhsiiyaan oo camalkii addoomaha la rafciyo. marka waxaan jecelahay buu nebigu camalkayga in ilaahay loo gudbiyo anigoo sooman. xikmadaha waxaa ka mid a waa ka tamriini calaa siyaami ramadaan. waxaa loo sii tababaranayaa bishii ramadaane soo socotay oo qofku had iyo jeer hadduu hawl adag qabanayo loo tababaro ama dagaal uu gelayo oo carbis fiican la siiyo hawshaas si fiican buu u qabtaa, wuu ku xaragoodaa. markaa qofkii shacbaan la soo qabsaday soomka ramadaanna way u sahlanaanaysa. xikmadaha waxaa ka mid a waa ixyaau sunnatin mahjuura, sunno dadku ay ka tegeen oo lasoo noolaynayo. nebi maxamedna sala allahu calayhi wasalam waxa uu xusay xadiidkii saxiixaa sunno dadku ay ka tegeen qofka soo nooleeyo waxa uu leeyahay ciddii kaga dayatay ajrigooda intay heleen in la-eg. waxaynu dhibaatooyinkan ku waajahaynaa biliimaani bilqadari waatawakuli cala allahi tacaala. waxaynu rumaysannahay wixii dhacaaba inaanu iska dhicin, laakiin qadar ilaahay uu ku yimi. marka waa ku qanacsannahay qadarkaa ilaahay u qaadan waa inagu dhici maayo. waxaad arkaysaa gaaladii oo fooqyada iska daadinaya, qaarkoodoo isdilaya, qaarkoodoo isgubaya, qadarkaanay rumaysnayn. ilaahayna waynu tala saaranaynaa subxaanahu wa tacaala. labada arrimoodba ilaahay aayaddan buu ku wada tilmaamay, xayثu qaal qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allahu lana huwa mawlaana wacala allahi falyatawakal ilmu'minuun. waxaana soo gaari kara uun wuxuu ilaahay noo qadaray. dadka alla yaqaankiina ee ilaahay rumaysanna allaha tala saartaan oo arrimahooda ilaahay u dhibtaan. waxaynu kaga hortegaynaa arujuucu waatadarucu ila allahi tacaala. wax kastaoo dhaca ilaahay wuxuu inaga doonayaa inaynu soo noqono, aynu baraarugno. dadku xumaantiibay kullibdheenay ku fogaadeen. marka waxaa loo baraarujinayaa inay dib u soo laabtaan, ay baraarugaan. ka gaalkii toobadkeenu islaamo, ka caasigii ilaahay caabuda subxaanahu wa tacaala, kii xumaanta ku jira ee uu ka baxo. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بدي يبر ببلايا يسبح ليبا إلى هول دنبي قيدتكو قلين أيا وحا كيمي عذر رضا يا عبسدا يا عريري بدن الدتك هايست يا بسارد وحا الله وحا هايستورنا من بلايا دا أي دتكو السمايين يا معسيدو كل شيء إلى هول. marka ilaahayna dhibka wuxuu ugu ridayaa lacallahum yarjicuun si ay u soo noqdaan oo ay u toobad keenaan. waxa aynu arrimahan kaga hortegaynaa akhdu lasbaabi lilwiqaaya. ilaahay waynu qadarkiisa rumaynay, waynu tala saarannay, laakiin laa natawaakal, isdhigan mayno oo odhan mayna ilaahay baynu tala saarannay wax walba aan samayno ma yeelayna ee wixii sharcigu ina farayna waa yeelayna ay ka mid tahay sababaha ka hortagana inaynu samayno. horena waynu soo sharaxnay oo khudbadihii horena waynu kaga soo hadalnay siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam arrimaha noocana kaga hortegi jiray iyo dhibaatooyinka wax alla wixii caafimaad ahaan xal u noqonaya dadka, ka hortagga iyo daaweynta intaba in iyadana aynu ku dadaalo. marar badan ay idaacadaha ka dhagaysataana la idiin sharxayo. waxaa ugu dambayntii nataa'ij, waxaa natiij ahaan arrimahan uga soo baxay aynu arkayno ee caalamka ka muuqanaya ana alumuura biyadi illaahi tacaala. arrimahoo dhami dhib iyo dheef bayna ilaahay gacantiisa ku jiraan. oo dadkii odhan jiray awood baanu leenahay iyo dowladihii faani jiray ummadu xaggooda ay eegi jireen itaaldarradoodiibaa inoo muuqatay. wakhuliqa alinsaanu daciif. waxaynu maqlayna madaxweynaha talyaaniga gacmuhu kor u taago waxa uu leeyahay arrinku dhulkii wuu ka dhammaaday, xagga sarea laga war sugaya. dadkii muslimkee masaajidada inay ku tukadaan loo diiday baa la shaariciyada ku tukada bannaanada oo balin wuxuun laydinka aqbalo ilaahay noo baryaday leeyahy. annaga dawadayadii iyo oksijiintayadii iyo waxagayagu u dhammaaday, cirkaynu jawaab ka sugaynaa buu ku leeyahay. dee waxay ahayd inuu ilaahay rumeeyo subxaana wa tacaala markuu dacfigiisa qirtay. waxay noo arrintanina xusuusinaysaa nataa'ijka ka mid ah aakhiro iyo qiyaamaha. yowma yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniih likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nu yugniih. waa la kala yaacay.
وأدتك أنتي كوجود ويد بتكعر رئيس أو بتكاجي أريد هذه إهلكي أيو قف كعرية قف والبقرن كف لمبة هراي وحي وسائل الإعلام إن معلمها كو أركين إن اختلاف حرقات بو قلبي جاي قودم قيد عدد إيجا سو مرتب ونختار فرنسيس وقاله إنه ضياع وحدي في يبود عصبتها الكيجا مركي نفتي قواتها وصير من أيام وحدي عرورته إذا دبدت شوكته بل البخسية دي ودن بيا أن السيا أرجنا يقوياد وأنا قوياد وحيد يقول أبيه ودمنا ينبت قليي وحيد هذا ما وأنا كقاضي إن عذر كهيسكر أنت وشيء أنا نسوق لي كرين سيدان أيك كجوك سيدنا كجب غضيب معنا أبوه ضد من يجي كرواي أو أي كعررين وحي نقفى هذه السنة إن أهرنا لما النتائج كصاب حك أي تاين نقفى هذه السنة حالة دي تمادة بإسلام كوا لوجا فايدة مركادتكم مركز ضعيف لماذا أي موقتي أرنكينو لها يكون رأي أو عطاتي قفك قالك شوغانا وينو دالا سدو إسلامين لها قفك قف مؤمن أكشوغانا أما قف عاصي أكشوغانا وينو دالا سدو صهرون لها خير كوسو جهين لها وأيام مالا أولي قد بالحرين بالحراي ويكملهن ماله دمر كحمحمي أي حمان تكون سمين شرين مخباراتية ماله خمرجة جوابه خمرجة بهالك قمارك اللي ورن شري دول ولي قد ممنوع كهايدين لطابت ويورن شرين حرية أيام ما أنت حرن كوين إسلام كاللوجا فائدة يدت كسيدي دين تلوش على يسين لها يقول هدي أودي إلهي أركانه إتال درهدو دي أي موقتي سيدي ألا لوجو سعيل لها أرمها سنوا وحيابها ما لقى فائدة سنكر أما النتائج كمذا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نغمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة